عبدالرشيد حسن متان وسفر دير كسو غلاي دلكي هويو ee Somaliland soo maray Mareykanka iyo Toronto xalay ku sugnaa waxay runtii inoo tahay inagana sharaf maadaama inaan reebato kulli soo dhaweynteedii iyo qaabladeedina weyn runtii waa wax inagu waajib ah waxaan marka hore u mahadnaqayaa odayaasha sida sharafta iyo qiimaha leh xafladan uu soo qabanqaabiyay داهر وابري يا عبدي وهريان ورمتي انت وجدني إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى صدق الله العظيم. ما شاء الله. صدق الله العظيم. عاوى وحان شرفيها وأنا دج علينا نحلكم كسودويو عبدالرشيد حسن متان oo musharaxa jagada madaxweyne ku xigeenka ee xisbiga u ciiday Soomaaliya magaalada joogno isagoo Uganda joogay haddana aqoon badan baa iga soo kordhay intii aan Darfur joogay dadka Soomaalida ah iyo dadka ajnabiga ah ee jooga Darfur ee xafiiska UNIMID ka shaqeeya haddii aad Cabdalrashiid tiraa way isku kala taagay waxay u yaqaanaan nin mas'uul ah oo shaqadiisa ku wanaagsan nin dabeecad leh oo dadka la wada dhaqma haddii uu gaal yahay waa dhageysanaynaa waa la gurinaynaa su'aalaan weydiinaynaa waxaan eegaynaa bal waa ku idinkaa badka isa soo dhigee waxaa wadaan bal nala waxaan salaamayaa dhammaan marti sharafta qiimaha leh ee ka soo qayb gashay waftigan qiimaha leh ee martida inoogu ah maanta Ottawa waxaan soo dhaweynaynaa oo si qiimo leh sharaf iyo karaamo ku jirto u soo dhaweynaynaa waftiga qiimaha leh ee ka socda dalkeenii ka yimid ee murashaxa u ah madaxweyne ku xigeenka xisbiga UCID aqoonyahan Cabdalrashiid Xasan Axmed soo dhawow baan ku leenahay Cabdalrashiid soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow anaga laftarkaygu jidheer baan idii soo maray raggii barwaa haray inteedii soo dadaalkeeda waan idin nimid anagu aad iyo aad u qadarinaynaa mar walba sidaan noo soo dhaweysaan xisbiga UCIDna haddaan nahay anagu kulli mar walba waanu idin nimaadnaa 2005kii waxaan la socday Engineer Faisal Ali Hussein oo aad noogu qabateen فيلم ماركوني سفي علي ذوكم ما أنت عبدالرشيد أيا إديم ولما يدعين حسب قرى إلا عضو أما هو كان كيسة سرع قدومية هيسة أما قدومية كيسة أما حويه هيسة قد
ama madaxweynihiina hore daahir ama ku-xigeenkiisii inuu marnaba cagta soo geliyo Canada ama Ottawa u taagnaa. maanta maalin ucud ay dadku dhinaciisa uga fogeyn ma jirto oo xusba ilgaara ku hayaan. waxaan loo baahan yahay runtii in la yiraahdo bal ucudna hal la tijaabiyo. udub soo aragnay waxyaabo badan bay soo qabatay, kulmiye maanta waynu haynaa, bal ucudna waxay hayso bal horta waqti ha la siiyo. run ahaantiina anagu waxaanu samaynay haddaan Toronto nahay, maadaama aanu badan nahay xubnaha xisbiga inta badanna ku jiray, membership yaanu samaynay, xiriir joogto aanu la leenahay gudahiisa dabadba. wafdi kasta waad aragtaan waanu soo raacnaa, waanu soo abaabulnaa. Ottawa annagu waxaan aad u aaminsanay dad aad iyo aad waxgarad u ah, aqoon-yahankii Somaliland, hooyooyinkii Somaliland qiimaha lahaa inaad ku joogtaan. dad badan oo idinka mid inay waddanka ay contribution ku sameeyeen, hadday noqoto private sectorska businesska iyo hadday noqoto dad badan oo xilal ka qabtay oo waddanka iyo xisbiga ucid. waxaan halkan wadnaa musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga ucid cabdirashiid xasan axmed ama cabdirashiid xasan martaan. kartaa ninka halka reer lihi in wax lagu aamini karo waa caadiya qof. Rashiid iyo Jamaalba waa dadka aan isleenahay waxay bedeli doonaan sidii uu sheegay Dr. Tani generationkan cusub ama midabadan cusub ee nagu soo noqonaya haddii ay ka suurto gasho idinka. taariikh nololeedkiisa waxqabadka muddadii uu Cabdirashiid joogay Somaliland laga soo bilaabo 90kii waxay ahayd waqti aad u adag. January waxaan xasuustaa iyadoo oo dagaalo sokeeya dalka ka dhaceen, burburkii dowladda Maxamed Siyaad Barre soo saameysay. Cabdirashiid iyo ninkii loo odhan jiray Jaamac Pakistan waxay ka mid ahaayeen niman markaa UN-ta u shaqeynaya oo dhulka ka yaaceen xamar ee ka kala yimiday Berbera oo suurtageliya xataa communicationkii u horreeyay magaalooyinka. waxaan ku soo koobayaa xisbiga ucid nimanka hadda hoggaanka u qabtay waa niman dhalinyaro ah, waa niman cusub, waa niman u baahan taageerada dadka jecel inuu isbeddel ku yimaado oo ay yimaadaan dad karti, aqoon, waayo aragnimo iyo xirfad leh oo ku yimiday waxa ay yaqaanaan, awoodna u leh shaqada ay yaqaanaan inay qaban karaan. waxay la imaanayaan nimankan dhalinyaradu khibrad ka badan 26 sannadood oo gaar ahaan Cabdirashiid uu ka soo shaqeeyay wadamada Ciraaq, Jordan, Sudan, Sierra Leone, Soomaaliya, Somaliland iyo hadda uu fadhiyo ka billah. Salaatu wassalamu ala rasuulillah. mudanayaal, marwooyin, dhalinyaro, waayeel, dhammaantiin dadweynihiina sharafta leh ee waqtigooda qaaliga u soo horay xilligan dhaxanta badan iyo baraf ku dhacayo inaynu madashan ku kulanno. waxaan idin leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantiin. waxaa kaloon ka mahadnaqayaa ikraamka faraha badan leh ee Toronto iyo Minneapolis iyo meel walba aan kula kulmay, laakiin waxa day isu keenayaan waa dan guud oo aan wada leenahay. waa lagama maarmaan inaan in badan oo aanan muddo dheer isarag aanu isgaadhno. waxaan urursanaynaa waa aaraa, waa talooyin. dadkuna markay isku soo dhawaadaan bay aragtidooduna isku soo dhawaataa, taladooduna isku soo dhawaataa. marka taasi waa tii soo dhaweynta, waana ka mahad celinayaa, waana mid mudan. ta labaad, xog warsigu waa muhiim. waxaa lagu celcelinayay Cabdirashiid baan balwar ka sugaynaa, balta xisbigu hay dambayseen warka. waxaan ugu horreysiinayaa bal marka hore inaynu in yar guud marno Somaliland iyo sooyaalkeedii. Somaliland waa 36 jir marka laga soo bilaabo 1990. dhowr bilood baa inooga dhiman. waxaa soo maray ilaa maanta 4 maamul oo kala dambeeyay. waxa ugu horreeyay Allah naxariistay maamulkii ayaa qabsamay muddadii madaxweyne Riyaal. doorashooyinkaasi waxayna dhaxalsiiyeen in magacii iyo sharafkii iyo karaamada Somaliland kor soo kaco. waxayna dhaxalsiiyeen inay noo furanto dhegta dadka deeqda bixiya oo ayna dhagaysan karaan oo yidhahdaan waa meel ismaamulaysa, waa meel nidaam ka jiro, dimuqraadiyadda ka bilaabantay, dhaqaalihiina inoo furmo.
waxaa taladii dalka ku wareegay madaxweynaha maanta talada haya oo hoggaan ka ahaa xisbigii kulmiye oo waqti badanna ahaa mucaarad rabayna talada dalka inuu mar gacanta ku dhigaa shacabkana ugu baaqay isbeddel fara badan madaxweyne kasta iyo maamul kasta oo kala dambeeyey marba ka dambe ayaa nasiib badnaa waayo dal dhismay iyo u imanayay waxaan odhan karaa waxa ugu nasiib badnaa haddii maamul lagu soo wareego maamulkii ay la wareegeen kulmiye waxay la wareegeen meel garaafkeedu kor u socdo oo weliba uu aad kor u kacay markaad eegto xagga caalamka ilaa 8 dal baa lagu qiyaasaa intii saaxiibtinimo dhow aynu la yeelanay habmaamuus sare ayaa laynagu qaabili jiray meelo badan maanta waa lagama maarmaan haddii xogwasaad weydiiseen inaynu dul joogsanno halkee baynu maraynaa halkayse wax marayeen isbeddelkii shacabku sugayeysay maxaa ka suurtagalay isbeddelkii shacabku sugayay dal nabada iyo markii horeba jiray maanta dalkii nabadgelyadiisu bariga galbeedba dhibaatooyin ka dhacay waad ka haysan waxaan iyadana la dafiri karin kalsooni darrada shacabka gashay talada xukuumadda kulmiye abuurtay inay dhashay xukuumadda la yidhaahdo Awdal State khatumo maakhir iyo xewnamada xidambiya ma aha shacabku inuu dareenkooda muujiyo waa kalsooni darro ay dareemeen dowladdu inay ka feejignaato ay ka taxadirto in kalsoonida shacabku lunto waa mas-uuliyaddeeda saaran haddii aan la helin kalsoonida shacabka min yacado ilaa iyo taleex dalkani ma jirayo dadkaasina in kalsoonidoodii la soo celiyaa waa lagama maarmaan ummadii waxay wax ku noqotaa waa cadaaladda iyo sharciga Somaliland markii ugu horreysay waxaa lumay sharcigii isdheeli tiray oo ahaa baarlamaan iyo xukuumad isku noqda miisaanka labadiisa kafadood sharciyadii lagu fulinayay fulinta lagu ilaalin lahaa markii ugu horreysay xukuumaddaas waxay ka shaqaysay inay sharciyadda waxay naga qalloocday xorriyaddii shakhsiga ahayd haddii dadku ka dagaalameen in dadka la iska xidho maanta la iska xidha hargeysa waxaa la xidho dalka lagu xidhay suxufiyiintii ugu badnaa tiro 23 sannadood dalku jiray waxaa ku waayay shaqooyinkii ay hayeen muwaadiniin badan fikirka ay aaminsan yihiin dartood waxay saamaysay ganacsadayaal waxaa la sheegay baan ninka wasiiro oo la kaftamay inkastoo wasiirkaasi imika ka bashoy nin ganacsada oo yar dabadeed dadkii ganacsada looga yeeray station police-ka nin baa ku yidhi oo berigii hore kacaankii siyaad baa la isku xidhi jiray ku qosle kabtan ku fay matii baynu noqonay waxaad arkayseen in soo dhaweyn lagu soo dhaweyn lahaa gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka madaarka in laga celiyey musharaxii madaxweyne ku-xigeenka iyo tiimkii soo dhaweyn lahaa waxaad arkayseen in la yidhi dhaqdhaqaaqa musharaxiinta ama dadka dalkan mas-uuliyiinta ka noqonaya ama kaba ah oo loo codeeyo xisbi qarana in la yidhaahdo ma tegi kartaan meelaha qaarkood waa xorriyad ka qaadi wey meel cadaalad lagu waayey amni ma yimaad waxaa maanta aad ogtihiin in ay nabadgelyadu faraha ka sii baxayso waxaa kor u kacay kufsigii gabdhaha ayaan daro dalka kusoo korodhay waxaa la isku baacsadaa suuqa hargeysa waxay ugu diyaar garoobeen inay keenaan musharaxiin cusub oo ka duwan kuwii hore iyo kaararkii sida turubka oo kale nagu soo noqnoqonayay 23 sannadood waxay ugu diyaar garoobeen inay keenaan fikir ka duwan kii hore aragti ka duwan tii hore marka in yar baan dul maraya aragtida aan qabno annagu xisbi ahaan waxaanu qabnaa marka ugu horeysa horta inuu sharcigu shaqeeyo ummada sharci waa ku noqotaa waxaanu ka dhowrsan inaanu sharciga ku tubano dalku dastuur buu leeyahay intii akhriday dastuurka
sharciyo badan oo dhammaystiran baa ku qoran meelaha technicalka ah ee loo dhaafay in lagu caddayn doono xeer sharci kuwii laga sugayay waa baarlamaanka oo 10 sano fadhiyo meesha weli xeerkii iyaga lagu dooran lahaa may qorin waxaanu isku dayay inaanu dadka ku wacyigelino inay baarlamaanka dadka keensanayaan noqdaan dad matali kara xilkoodana gudan kara waxaanu keeni fikir ah inaanu dhowro hanaanka mas'uuliyadaha iyo xilalka la kala hayo in loo daayo sida ay yihiin isku dayimayno inaanu xildhibaan foodkiisa ka iibino ama aanu ka dhigno masiirka shacabku inuu noqdo wax suuqa lagu khalas rifto waxaanu dhowri sharafka iyo karaamada cimaamada odayaasha iyo salaadiinta waa dhaqan aynu ku soo gaarnay meel fiican waxa la geliyay inflation ama qiimo tir waxaanu u deyn odayaasha dhaqanka taladooda dhaqanka ilaa aanu dhaafin ee ay haystaan hawshooda mas'uuliyadaha dalka ee kala duwan iyo xilalka la kala leeyahay mid walba sidiisa in loo fushado ayaanu ku dadaalay waxaanu ku dadaalay dadka hadday annaguna la siiyo cod inaanu dadkaanu igmanayna noqdaan dad karti leh hawshana qabsan kara lalana xisaabtami karo dad aqoonteedii leh ee aan ku iman xaafaday ka soo jeedaan haddii aan si kooban u sheego waxa qabyaaladda la yidhaahday waa wax in yari ku macaashto laakiin wax dadka wada gaadhan maaha waxaa hargeysa imika ka jira guruub la yidhaha dilaalinta siyaasadda waa inta ka shaqaysa qabyaaladda ee mooda inay macno badan leedahay laakiin waxaa muhiima qofku inuu helo ilmaha jooga hadduu yahay lowyacado iyo ka taleex ku nool iyo ka ceeri gaabo ama lughaya ama beligubadle xuquuq isku mid ah dalka inay ku yeeshaan iyo daryeelka ay u baahan yihiin taa haddii la helo qofku qabyaaladda wuxuu uga baahnaanayaa way yaraanaysa ka fikirayna inaanu ka tagno talo iyo raad dhaxal reeba oo la iska raaco haddii la yidhaahdo waxaanu ku dadaali inaanu noqono kuwa ka fikira mustaqbal ee aan ku ekaan sida maanta talada ka jirta dalka yoomiyaha taladeennii waxay noqotay yoomiye waxaanu dalka ku hogaamin nolol mustaqbal leh iyo oo laga fikirayo ilmaha maanta xoogga ku jira talada loo dhigi lahaa meel waxaad ogtihiin dhulka aad joogtaan waxa wax lagula soo baxa waa shaqo dadkeennu waxay u baahan yihiin wacyi badan tababar badan waxaaga oo aad hagaajisataa waxaad kaga maarmaysaa baahi badan oo dabadda ka sugayso ictiraaf maanta wuxuu ka dhowaa 3 sano ka hor taladeennii ictiraafku waxaa ku soo ururtay wadahadallada soomaaliya wadahadallada soomaaliyana waa madhalays dastuurka soomaaliyana waxaa ku qoran midnimadu waa muqadas dastuurka Soomaaliland waxa ku qoran gool istaagan waa muqadas ajendayaal rasmi oo laga wada hadlo lama qoro barnaamij cad oo la tagayana laba sheego marka waa waqti lumis waxaanu ka yeelan annagu siyaasadda Soomaaliland siyaasad cad meel aanan ogeyn waxaanu ka helinana kullu min mayno waqti waxaanu uga horeynayaa inaanu kasbano kalsoonida shacabka min bari ilaa galbeed Iran iyo in loo huro dhaqaale badan iyo nafba anu shaqo fiican baan haystaa United Nations aan shaqaynay Jamal Saas ilaa wuxuu haystay shaqo wanaagsan isagu already uu sabaxaan wana dariiqa ku jira labadeedu waxaanu garanay in dalka kan 3 sanadood soo socday 3 ku xigana aanu ku sii socon karin
talada maanta jirta sacrifice-ka loo baahan yahayna inaanu anagu kow ka noqono si loo helo dad ku dayan kara waayo haddaanad noqon kuwa wax bedelaya oo ay sheeko u noqoto goormay wax isbedelayaan waxba isbedeli maayaan waxaa loo baahan yahay in dalka aqoon-yahanku ku dib ugu noqdo in ninka noqonaya howlwadeen dalka oo shaqaynaya uu noqdo nin khibradii aqooneed leh iyo aragtidii horumarineed inuu ninka xildhibaanka ee kursiga fadhiisanaya noqdo nin aanu haysan shaqadiisa inay tahay farta la taagayo mar la dejinayo ee uu noqdo nin garanaya mas'uuliyadda fartan leedahay iyo constituency-ga uu matalo iyo sida loo xisaabtamo waxaan leeyahay in badan oo idinka mid ah way jecel yihiin dalkii inay degaan laakiin waxay sugayaan taa yaan la wada sugin intii karaysa waxaan leeyahay dalka ha lagu soo noqdo talada dalka iyo isbeddelkeeda qayb ha laga qaato haddii kale dalkani 23 kaga soo socdana halkaas taagnaanay wasalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رنتي آد إيا آد أيو مهدسيهي أنا محمدنا سيدا ملقها إيا قيمها إيا شرفتك وحرمم تهي وهاكن نوغو استاقي نوغا بيامي سياسة الجود